munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka qayb galay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga xildhibaano mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale gudoomiyaha guud ee iftin group oo daryeel bank ka mid ah aadan cabdulaahi ilkacasi ayaa ugu horeyn munaasabada ka hadlay waxauna marti sharafta ka qayb gashay munaasabadaasi u faahfaahiyey bankiga daryeel iyo adeegyada uu bixiyo wuxuuna sidoo kale sharaxaad uu ka bixiyey goorta la aasaasay bankiga iyo sababaha keenay in la aasaaso ay ka kooban ugu horeeyay iftin express oo aan taqaanaan taasoo ah company money transfer ama xawaalad lana aasaasay sanadku markuu ahaa 2006 waxaa aasaasay dad Soomaaliyeed oo isugu jira aqoon-yahano iyo ganacsato sida uga qayb qaataan horumarinta iyo haqab-jirka baahiyada ka jira waddanka Soomaaliya. Waxaa aad uga faa'iidaystay muddadaas ay jirtay iftin shaqaale badan bay oo shaqo abuur ay soo siyaasatay waxay qabatay service kala duwan iyadoo si fudud dadka lacagahooda ka taqaanada adduunka ugu kala gudbay. iftin intaa kadib markaa kuma ekayn waxay u gudubtay in ay horumarinta ka qayb qaadato oo ay samayso qaybta yidhaahda iftin construction ama iftin real estate taasoo ku guulaysatay in ay hanti maguurtaan ka samayso Soomaaliya gudaheeda iyo dibaddeeda. xildhibaan Idris Cabdi Dhakhtar iyo mas'uuliyiin kale oo goobta ka hadlay ayaa waxay mas'uuliyiinta bankiga daryeel kula dardaarmeen in magaca bankiga ay ka dhabeeyaan oo dadka shacabka ah ee u baahan daryeel in ay wax u qabtaan misna wax soo saarka dalkuna ay dhiirigeliyaan. anigu hadda kor waxaan lahaan jiray NGO la yiraahdo daryeel NGO-gaas goobo waxbarasho oo lacag la'aan ah furay marka waxaan rabnaa daryeel waxaa dhahdeen daryeel danaha bulshada faa'iido in la raadiyo maaha waa inaad maxalnahay bulshada aad faa'iidada ka raadinaysid inaad goobo waxbarasho ama jaamacad bees la'aan ama dugsi sare qaada inaad furtaan wada taas waxaan ka codsanayaa madaxda magaca wadataana wuxuu yahay magac aad iyo aad maxaa lalahay bulshada wax u tari kara tan kale farxad gaar bay noo tahay in tartanka uu bato dhanka bangiyada maantana daryeel bangi waxay qayb ka mid tahay bunuugta dalka ka jirtay taasi waxay abuuri doontaa fursado oo aad u qiimo badan sida shaqo abuur dhalinyarta Soomaaliyeed ee ka soo qandibiyay jaamacadaha dalka iyo kuwa qurbaha inta ka yimid farxaddaas maanta waxaan la qaybsanaynaa daryeel bank waxayna noo sheegeen inay soo kordhiyeen adeega casri gabagabadii xildhibaan daahir cabdi cabdulaahi Dr. Go oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga ayaa munaasabada soo xidhay isagoona kula dardaarmay mas'uuliyiinta daryeel bank in ay dardargeliyaan howlahooda bankiga wuxuuna sheegay in wasaaradda ganacsiga mar waliba ay taageersan tahay misna dhiirigelinayso ganacsatada Soomaaliyeed. الله تعالى وين نوب لابطي واسي وين عدل يرالو أنا جوها نيجي إن محل يتحقق معنا إن رتاجنا هاي كان أساس وما بس يجوتو لأنه تاكسي بيت وقوم بالوطن كان عصته ما كان صار زراد ما دام تاكسي غير قال كان عصته أي حكومته أي كل شيء يسوق وحنا رتاجنا إن ميل شيء إن لك شو إن سيدا أقع إن لهين عن كان عصته وما كنت ذلك يا الله ما سنتين أنت سمسوا دوبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.